xildhibaanada Barlamanka oo heshiiskan ka dooday fadhigii looga doodayay miisaaniyadda dalka ee sanadda 2014 ayaa is hortaagay heshiis ay dawladdu la gashay shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo la wareegi lahayd maamulka dekada weyn ee magaalada muqdisho iyagoona ku tilmaamay in aysan sharci ahayn in xilligan shirkad shisheeye loo dhiibo maamulka dekada maadaama aan go'aan laga gaarin sharciga maalgashiga dalka sidoo kale mudanayaasha Barlamanka ayaa isku raacay in ay xukuumaddu muddo 30 maalmood gudahood ah ay Barlamanka ku horkeento heshiiska ay la gashay shirkadda hadda maamusha dekada iyagoona ku baaqay in la wada ilaaliyo shuruucda dalka gudoomiyaha guddiga gaadiidka Barlamanka Soomaaliya xildhibaan Cismaan Aadan Duubow ayaa sheegay in dawladdu ay hore heshiis ula gashay shirkado shisheeye kuwaas oo uu sheegay in miiska hoostiisa lagu kala saxeexday sidaa daraadeedna aan xilligan loo baahnayn in la galo heshiisyo dhoomaaleys ah oo ilaha dhaqaalaha dalka lagu wareejinayo shirkado shisheeye dhanka kale mudanayaal ka tirsan Barlamanka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in ay diyaariyeen mooshin ka dhan ah shirkadda Turkiga ee maamusha garoonka diyaaradaha muqdisho maxamed bile gelle somsat magaalada muqdisho